jiif caaqilka guud ee degmada Ceerikaawa jiif caaqil Caynaanshe Caynab Cali Aamus ay weheliyeen xubno isugu jiray salaadiin cuqaal xildhibaano iyo waxgarad kale ayaa waxa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka tuulada faca weyn ee Jiidali oo jihada bari ka xigta magaalada Ceerikaawa waxaana munaasabad ballaaran oo soo dhaweynta jiif caaqilkan iyo wafdigiisa halkaasi loogu qabtay inay ka soo qayb galeen madax dhaqameed guurtii waxgarad kale culimaadiin haween dhalinyaro iyo dadweyne kale oo tiro badani ayaa waxa uu horeen halkaasi hadalka isaga dambeeyay jiif caaqil Maxamed Cabdi Xasan kusima jiif caaqil Yaasiin Xuseen Xasan iyo waliba qaar kamid ah guurtida iyo waxgaradka kale ee bulshada tuuladan Jiidali waxaana hadaladoodii kamid ahaa jiif caaqil Caynaanshe Axmed Cali Aamus haddaanu reesaynahay aad baan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waa salaamayna salaan ka bacdi waxay reersanaa ka wada dhigaysan yihiin saddexda nin ee ugu taariikh dheeraa reer Sanaag ama Muuse Ismaaciil inuu awowhii ka mid ahaa Cali Aamus waxaan salaamayaa soo dhaweynaynaa jiif caaqil Caynaanshe Axmed Cali Aamus waxaanu leenahay jiif caaqil ku soo dhawow dalkaagii dadkaagii Jiidali waa ku soo dhaweynaynaa ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa in ilaahay kula galab galo xilka cusub maanta waa nagu soo kadiyay jiif caaqilku waxaanu ballan qaadaynaa xilli dhow inaanu ku casumi doono Jiidali halkan Jiidali weeye waxa halkan nagu soo booqday jiif caaqil Caynaanshe Caynab Cali Aamus waxa weeye jiif caaqil mala dadku aad dhalinyaro u badan yahay 1922kii waxa weeye jiifkii kaliya u horeeyay caaqilkii u horeeyay oo Ceergaaba yimi isagoo caaqil ah kana yimi Burco waa caaqilkii sameeyay caaqilada gobolka Sanaag ba awoowe u ah oo wuxuu ahaa Cali Aamus marka waxa weeye halka waxaanu ku soo dhaweynaynaa jiif caaqilka anigoo ku hadlay afka geedka saynta la reer Jiidaliyeed ama beesha warsangelida waxaan leeyahay xilka ilaahayna ku fududeeyo aad iyo aadna waa ku taaneedayna waan ku soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa wafdiga xoogga weyn leh isimada iyo cuqaasha ay ku jiraan oo la socda jiif caaqil Caynaanshe Caynab Axmed Cali Aamus waxaanu leenahay soo dhawow halka waxaan ku soo dhaweynaynaa Caynaanshe Axmed Cali Aamus waana jiif caaqilkii guud Hadar Yunis Bari waxaanu leenahay jiifka waa soo dhaweynaynaa waxa isaguna hadal soo dhaweynta wafdigan u badan halkaasi ka yidhi gudoomiyaha tuulada Jiidali Cigaal Maxamed Xirsi halkan waa Jiidali waxaan ku soo dhaweynaynaa Caynaanshe Caynab Cali Aamus jiif ah oo caaqilkii soo jireega ahaa oo caaqilkii daada yaraa caaqil soo dhawow waan ku leenahay haddaanu naano ku hadlayo magac Jiidaliyeed anoo ku hadlayo magac koonfurta Sanaag waxaan leeyahay caaqilka waa la shaqeynaynaa jiifka gobolka waana ixtiraafnay intaasi kadibna dhinaca xubnaha wafdiga uu hogaaminayay jiif caaqil Caynaanshe Caynab Cali Aamus ayaa waxa iyaguna hadallo mahadnaqa halkaasi ka soo jeediyay caaqil Maxamuud Dirar Xasan iyo Suldaan Cali Yuusuf Badacas waa wax aanan weligayo ilaabaynin soo dhaweynta iyo sooriyada iyo tadambe la ballan qaadayo wax la ilaabi karayo ma aha ballan qaadka dambe Jiidali samaysaneen waanu idinka gudoonnay isagana meesha lagu tuhmayaa waxa weeye inuu labada indhood ku eegi doono waa ilaa midhisho ilaa Jiidali sidaa la sheegay jiif caaqilka waanu soo galbinay waxaanu dooranay xagaanu ku horeysiinaa adinka nasiib u yeeshay hadaa Jiidali tihiin degmada Jiidali waxaanu leenahay insha Allah saasa khayrkuna idinku soo horeey doona ugu dambeyntiina jiif caaqil Caynaanshe Caynab Cali Aamus oo munaasabadan ka hadlay isla markaana bulshada reer Jiidali uga mahadnaqay soo dhaweynta isaga iyo wafdigiisa ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaan idinka mahadnaqayaa sida quruxda leh ee qadarinta leh ee qiimaha leh ee aad noo soo dhaweyseen waxaan idin leeyahay barakallahu fiik ilaahay ha idin soo dhaweeyo reer Sanaag kasi reer Ceergaabo waa ii siman yihiin dhammaan jiif caaqil baanu ahay waa dadkaygii waa dalkaygii waa isugu kaymid cadaalad baan ku dhaqayaa idinkana waxaan idinka codsanayaa xil culus weeye xilkan lay saaray
waxaan magan idinka ahay inaa iigu ducaysaan in ilaahay ii fududeeyo waxaan idinku dardaarayaa jiidali reer jiidaliyeed baa wax ku tihiin laakiinse waxaan reer jiidaliyeed ahayni waxba idin jari maayaan ee jiidalinimada xoojiya oo reer jiidaliyeed noqda waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV Ceerigaabo